السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها يقدرنت مدن وكلنتي وناكسن halkani waa Regional Somali TV alaaba in kaga yimaada magaalooyinka mataanaha Minneapolis wadanka Mareykanka daawadayaal waxaan waqtiyadeena oo kale 1 July waxa Soomaalidu ay xustaa markii la qaatay calankii markii xornimadii Soomaaliya ay qaadatay gumaysigii Soomaaliyana ay ka xorowday calankii Soomaaliyana la taagay oo markii ugu horeysay calan Soomaaliyeed la taago naga markaa ku soo qaadan doona xornimadii Soomaaliya ay qaadatay qaabkii ay u qaadatay iyo dadkii ka dambeeyay barnaamijkeena quruxda badan leh oo aad ku maqli doontaan qaybaha soo socda ayaan waxaan ku soo qaadan doonaa sidoo kale Sayid Maxamed Cabdulle Xasan geesigii Soomaaliya u kacay waqtigaasi in uu soo hooyay sidoo kale xornimada aan ku joogno maanta waxyaabo badan ayaanu ka hadli doonaa sidii calankeena lagu keenay calankeena isagoo markaa waxa calan aad u qurux badan الله نحرستين نكي ألفي أيو قفكي كدم بين نقشة لحظة حديقة عاد كجسا ورنت هاي شنطة جيس مركا عليه أو مذهب كبلوجا عركة وعقلة وها مركا ضد كسومالي دا عي سومرين دجالو أترى بدن وجميسجي أي سجد توريين وقت جاسي كن سجال بقول أيو كن سجال بقول سجالي طبعا كي إلا كن سجال بقول لحظة كي وقت جاس أول حيو دجال أي كل جرين ضد كاسي سومالي دا waxaa markaa daawadayaal barnaamijyadeena qaybaha dambe aanu ku soo qaadan doonaa sidoo kale dad Soomaaliyeed oo u hambalyeynaya 1 July ama 1 Luulyo hadba sida aad tiraahdo barnaamijkeena ayaan guda galaynaa insha Allah dadweynaha Soomaalida inaga meel walba ha joogaan aan leenahay sanad wanaagsan happy holiday dhamaantiinba aad baad u mahadsantihiin barnaamijka sida uga qayb qaadateen waxa sidoo kale aan u mahad celinayna dadkana soo wacay inaga marka taariikhdaasi fac weyn silsilada ay soo yaanka ah Soomaaliya aynu halkan ku koobi karin bal aanu jecelnahay in markaasi aynu ka sheekeeno waxaad muuqaal ahaan ku arki doontaan dad waqtiga joogay oo ka sheekeynaya 1960kii calansaarkii maalintii calanka la saaray Soomaaliya dadka shucuurtiisa sida ay u aykaayeen dadka Soomaalida sidii ahaayeen waqtigaasi iyo farxadda ka muuqatay waqtigaasi 1960kii iyagoo markaa calankeennii Soomaaliya la taagay ninkii caanka ahaa gabyaaga ahaa tima cadde ayaanu ku soo qaadan doonaa gabayadiisii iyo waxa uu ka tiriyay qaabkii uu tiriyay gabayadii Soomaaliya uu kaga tiriyay gumaysigii waxa sidoo kale daawadayaal aad barnaamijkeena ku maqli doontaan si muuqaal ah madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan oo gacan qaaday dadweynaha Soomaalida oo markaa maalintaasi faraxsanaa 1960kii siday ahayd waqtigaasi waxaan markaa gabagabo sidoo kale aynu ku soo qaadan doonaa sida waqtiyadaasi dhexe ilama waqtigan hadda aynu joogno taariikhda Soomaaliya meesha ay gashay ilama hadda naga markaa aynu ka faalan doono waqtigana nagu yar yahay insha Allah aynu ku dadaali doono waqtigaasi halka saac aynu leenahay inaan ku soo qaadano barnaamijkaasi quruxda badan leh ee ka hadlaya taariikhdii Soomaaliya walo markaasi taariikhdaasi ay sheegayso saddexda shanta gobol ee Soomaaliya loo qaybiyay gobolada waqooyi in ay qaateen markaasi Ingiriisiga Djibouti Faransiiska Soomaali galbeed Ethiopia la siiyay NFD dawladii Kenya dhankan koonfureedna Talyaanigu uu xukumi jiray waaga markaasi waxaan ku soo qaadan doonaa golihii dhexe ee Soomaaliya oo waqtiga ka jiray markii la aasaasay markii ugu horeysay la aasaasay dagaaladii xamar ka dhacay ee gumaysiga lagu la jiray dagaalkii ha noolaato dhagax tuur barnaamijkeena oo aad u qurux badan ayaanu jecelnahay daawadayaal inaan nala daawataan barnaamijkaasi oo barnaamij xiiso leh oo ummadda Soomaaliyeed ay doonayna inay nagula damaashaadaan damaashaadkaasi 1960kii markii calankeena Soomaaliya la saaray waxa markaasi ku soo qaadan doonaa sida aanu ku sheegnay barnaamijyadeennii caadiga ahaa waan iska dhaafnay sababtoo ah maanta oo kale 1960kii calankeena ayaa la taagay marka ma habboona marka inaan barnaamijyo kale ka sheekeeno barnaamijkeena aad u quruxda badan leh ayaanu kaga sheekeen doonaa taariikhdii Soomaaliya inagoo barnaamijyadii hore uga baxay idaacadda Regional TV aynu ku soo qaadanay barnaamijyada silsilada taariikhda ay leedahay dagaalkii sayidka uu kula galay gumaysiga dagaalkaasi uu ilaa iyo uu waday 1920kii halkaasi uu markaa gumaysigii Soomaaliya uu ku soo weeraray sanadkii
markuu ahaa 1919 markii ugu horeysay waddan Afrikaan ah diyaarad lagu soo weeraro Soomaaliya bay ahayd waxaana taa kasbay geesiyaashii Soomaaliya oo kacay sida Sayid Maxamed Cabdulla Xasan taariikhdeena markaa kama sheekeen karno gumaysiga Ingiriisiga waqtankeena sidoo uu kala qaybiyay qaybtii koonfureed qaybtii galbeed iyadoo markaa ay isku dhiibayeen taariikhdaasi dagaalkii halgankii meeshiisii uu ka sii socday dhalinyaradii Soomaaliyeed SYL iyana markaa in dagaalkii ay meeshooda ka sii wadeen ilaa laga gaaro calankii Soomaaliya oo markaasi dad Soomaaliyeed la arkay calan Soomaaliyeed iyadoo la saaray shucuurta waqtigaasi jirtay dadkaasi Soomaalida ah 1960kii sidii markaasi Soomaaliya oo keed marka wax aad iyo aad lagu faano oo aanu jecelnahay dadkeena Soomaalida in aanu ku faano oo aan ubadkeena uga sheekeeno dadkeena Soomaalida uga sheekeeno dadkan arkin wadankii ama sida Soomaaliya ay ahayd ama taariikhdeena facan weyn in ubadka hadda dhashay looga sheekeeyo haddii aad maaragtay ilmaha halkan aad ku dhashay intaad soo fadhiisiso aad tiraahdid aabe ama hooyo Soomaaliya saan bay ahayd calankiisaan buu u ekaa madaxweynayaasheenii saan bay ahaan jireen si markaas isna uu dareemo in wadan uu ka yimid meel uu ka yimid sababtoo ah taariikhdeena waxay ku dhowdahay inay dhuntaa oo muuqaal lagama hayo wadankeena Soomaaliya marka calankeena quruxda badan leh waqtiga la saaray 1960kii Ingiriiskii calankii Ingiriiska waxa arkaysaa la dajiyay dadkii oo sabcinaya oo mataqaana soo dhaweynaya marxabeynaya kana siib kana saar markii ay baxday timacade uu markaa gabaygii caan baxay uu ku qaaday dadkaasi shucuurtoodu sidii ahaayeen aynu ku soo qaadanayna barnaamijkeena ayaan guda galaynaa daawadayaal qaybaha dambe sidaan sheegay waxa ku maqli doontaan dadka Soomaalida oo markaasi ka faaloonaya ama sheegaya waqtigii gumaysigii uu jiray ama 60kii waqtigii la taagay calankii iyagoo ka hadlaya waqtigaasi ayaan ku soo qaadan doonaa insha Allah waa tahay daawadayaal daawasho wanaagsan barnaamijkeena qaybaha dambe ayaan ku soo qaadanayna tahay daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah barnaamijkan oo ku eegi doono taariikhda Soomaaliya ee facaweyn taariikhdaasi oo marnaba dadka Soomaalida aysan hilmaami karin maalmaha ku weyn taariikhda Soomaaliya ummad kaste oo dunida ku nool waxa ay leedahay taariikh ha ahaato mid ay ku xasuusato waayo wanaagsan iyo mid ay ku xasuusato waayo xun oo markaasi soo maray waxaase shaki ku jirin in caalamka dadka ku nool qolo walba ay marba heer soo martay taariikh iyo waayo kala duwan taariikhdu ma ahan wax duuguuba ama wax dhuma waxaase markaste ku lamaansan in la nooleeyo taariikhda bulshadu ay leedahay waxana taariikhda loo akhriyaa oo inta badan taariikhda aadka u baaraan dega dadku ay aad wadanimadu ay ku dheer tahay waxana waxyaabaha bulshooyinka caalamku ay isku dhaafaan kamid ah sida jiilba jiilka kale uu isugu gudbiyo taariikhdiisa wanaagsan iyo xumaantii dhacdaba dadyowga dunida ku nool waxay qolo walba leedahay maalmo ku subkan qulubtooda oo aanay ilaabi karin kuwaas oo ay ku xusuustaan qiimaha ay ugu fadhido taariikhdaasi waxana dadku ay had iyo goor muujiyaan sida ay u qiimeeyaan taariikhdaasi si aanaysan uga lumin loogana talaabsan oo faca ka dambeeya ay u gudbiyaan haddaba daawadayaal barnaamijkeennan waxaynu ku soo qaadanaynaa halgankii ummadda Soomaaliyeed oo ay hoggaanka u haysay gobonnimadoonkii Soomaaliya taariikhda faca weyn ee Soomaaliya iyo markaasi maanta oo kale ay tahay maalintii calankii Soomaaliya la taagay